السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن يالدمانتين بميل والبواد كجوكتان عالم كهالكاني واي اس تي في waxaad ku soo dhawaataan wararka haatan naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale oo aan idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan qodobada haatan wararka ugu doorkarona waxa kamid ah munaasabada lagu soo gunaanadayay socdaalkii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigii uu hogaaminayay waxay ka dhacday magaalada Jigjiga caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markay dhameysteen booqashadii ay ku joogeen waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay ka duuleen garoonka diyaaradaha Garaadweylaha ee magaalada Jigjiga waxaana sagootiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar sidoo kale wararka waxaad ku daawan doontaan baarlamaanada wadamada Afrika iyo Aasiya ayaa soo gabagabay kulankoodii ay yeesheen inta waa qaar ka mid ah qodobada wararka haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan ismaqal aragti wanaagsan mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan munaasabada lagu soo gunaanadayay socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigii hogaaminayay waxay ka dhacday magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka sida warbixintan ku sheegay wariye Maxamed Ciise labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya oo ahaa laba wadan oo jaar ah lehna xiriir wajiye badan oo gun weyn ayaa waxa ka hor xurashada dawladda federaalka Itoobiya iyo burburka dawladda Soomaaliya ay ahaayeen dawladihii markaasi ka talinayay labadaasi dal laba dawladood oo markaasi uu ka dhaxeeyay xiriir colaadeed isla markaasina kala dilay labadii bulsho weyn ee jaarka ahaa kadib markii ay burbureen labadii dawladood ee shuuciga ahaa ee markaasi ka kala talin jiray labada wadan ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxay dhismaheegii kadib dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay dadaal ballaaran u gashay sida ay markaasi wax ula qaban lahayd Soomaaliya ugana badbaadin lahayd nacabka sida nabadiidka iyo argagixisada waxaana dadaaladaasi kamid ahaa shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee sanadkii 1993 lagu qabtay magaalada Addis Ababa iyo ciidamada nabad ilaalinta ee dalka Itoobiya ay u dirtay dalkaasi Soomaaliya xiriirka labada dhinac ayaana waqtiyadii dambe si fiican u soo kobcayay ilaa uu lugihiisa isku taagay xiriirka ka dhaxeeya dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalka Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliya taasoo ay markaasi ku cadeynayso booqashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku yimiday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba socdaalkan uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku yimiday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay wafdigu ka soo kicitimeen magaalada Muqdisho toosna uga soo degeen garoonka diyaaradaha ee Garaadweylaha ee magaalada Jigjiga ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo markaasi hor socday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar tii oo dhanka kalena madaxweynaha deegaanka uu wakiil ka ahaa oo markaasi uu soo wakiishay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Haile Mariam Desalegn inuu markaasi wakiil ka noqdo soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana wakiilashadaasi ku tusaysaa kalsoonida ay dawladda federaalku ku qabto dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dawladda federaalku ku qabto dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sinaanta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalku ay u siman yihiin dalkan Itoobiya haddaba booqashadanu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wehelinayeen wafdi ballaaran oo isugu jiray wasiiro safiiro iyo waliba mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay goobo kala duwan oo ay kamid yihiin mashaariicaha horumarineed ee deegaanka iyo xarumaha waxbarashada sare dalka ku soo booqdeen ayaa waxa inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka bixin deegaanka loogu qabtay hoolka shirarka ee kaalihi munaasabada markaasi lagu soo gootinayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay munaasabadan oo lagu soo gunaanadayay booqashadii madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay ay ku yimaadeen deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar afayeenka golaha xildhibaanada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada deegaanka golaha kaabineetka mas'uuliyiinta agaasinada iyo waliba garwadeennada laamaha kala duwan ee xafiisyada dawladda kulankan oo ugu horeyntii furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa uu madaxweynuhu cadeeyay in booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay booqasho taariikhi ah isla markaasina xusuus gaar ah u leh deegaanka muddadii uu joogay madaxweynuhu ilaa booqashadiisii waa socdaal taariikhi ah joogitaan taariikhi ah muddo laba habeena inuu ku sugnaado magaalada Jigjiga waxaan dhigi karaa waa arrin hoosta ka xariiqan oo u baahan mar kasta in la xasuusnaado
geedi socodka horumarneed ee markaasi lagu xaqiijiyay horumarka deegaanka oo ahaa mid la isbarbar waday horumarka iyo nabadgelyada lana lamaaneeyay ayaa waxa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo arintaasi ka hadlayay sheegay inay lagama maarmaan tahay in dowladda federaalku ay can ka dhigto lamaaneynta ka shaqaynta nabadgelyada iyo horumarka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya shalay waxaalihii aan ku soo guuleysanay wadadii saxda ahayd aan maray qayb kamid ah oo aan leeyahay waxay u tari doontaa hadii la yiraahdo dowladda Soomaaliya yaan dooni halkan inaan madaxweynaha waan ka wada hadalay laakiin waftigan kale inay maqlaan iyaguna taas waa maxay awal markan hawsha nabadgelyada ka shaqeynay waxaan wadaan haynay waxay ahayd marka nabadgelyada aan dhamayno yaan horumarka dhamaynaynaba yaan sameeynaynaba ahayd taas khalad bay noqotay waxba waa lagu keeni waayay laakiin waxaan go'aansanay inaan nabadgelyada iyo horumarku ayna kala maarmaynin oo la isgarab wado oo waxa weeyaan maxaan ku raadnaa nabadgelyadiina hawl laga wado horumarkiina la wado tusaale ahaan inaan ceelkii qodno anagoo nabadgelyada ka shaqeynayna iskuulkiina sameeyna anagoo nabadgelyada ka shaqeynayna laakiin qorshe marka hore waxa markaan nabadgelyada dhameeyna wadanku nabad noqdo ayaa ceelkana la qodi biyahana la sameeyna taa way isbuxu weeyday marka hadaba waxaan leeyahay idinko shaqada maxaan ku raadnaa la dagaalanka ugus ku jira inaad maxaan ku raadnaa garab wadaan tii horumarkana si ay maxaan ku raayay ay arintu u noqoto mid uu shacabku faraha la soo galo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa munaasabadan lagu macasalaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga uu hogaaminayay uga mahad celiyay mas'uuliyiintii kaalinta buuxda ka qaadatay qabsoomida booqashadan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya mudane Hayle Maryam Desalegn iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya Dr. Tewodros Adhanom waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda federaalka oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalkeena mudane Hayle Maryam Desalegn oo arinta sababay yaan rabaa inaan u mahad celiyo oo waxa weeyaan anagana noo wakiishay xasan waxa weey maxaan ku raayo deegaanka Soomaalida iyo federalismka marka aad saad u aragtaan federalismka best example waa deegaanka Soomaalida ma taqaanay tagayiri waxaan rabaa sidoo kale inaan maxaan ku raayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Dr. Tewodros Adhanom inaan maxaan ku raayo aan u mahad celiyo gabagabadii khudbadiisa ayaa waxa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mahadnaq ballaaran u diray urur goboleedka IGAD oo markaasi dadaal ballaaran la garab jooga dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sidoo kale uga mahad celiyay maamulka iyo shaqaalihii ka soo qayb galay munaasabadan si ay markaasi ugu helan yihiin macasalaameynta waftigan madaxweyne nabad ku galbo shaqaalaha halkan fadhiyo wasiiradan iyo waagu markuu bariyo halkan yimaadeen ilaa waxay u fadhiyeen intaasna waxa weeyaan inay ay goodbye ku yiraahdaan iyagana waxaan uga mahad celinaynaa dulqaadashada iyo sida maxaan ku raaca intaas bay u fadhiyeen intii madaxdoodu imaanaysay aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum dhankiisa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankani ka hadlay ayaa uga mahad celiyay xukuumadda iyo shacabka deegaankaba soo dhaweynta ballaaran ee walaaltinimadu ku dheehan tahay ee markaasi lagu qaabilay dadka Soomaalida ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool dhamaantood iyo mas'uuliyiintooda madaxdooda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhaweyntii aad iyo aad u qiimaha badnayd walaalnimada lahayd shucuurta maxaan ku raad dadnimo ay ku dheehnayd aniga iyo wafdigaygaba halkan nalagu soo dhaweeyay waan ka mahad celinaynaa waa arin maxaan ku raadaay aad iyo aad noo dhiiri gelinaysa inaan ku sii dhiirano ku sii adkaano walaalaynta Soomaalida meel kasto ay joogan iyo nabadda iyo deganaanshaha gobolkan geeska Afrika iyo horumarinta cilaaqaadka iyo saaxiibtinimada iyo walaalnimada Soomaaliya iyo Itoobiya ka laba dawladood oo geeska Afrika ku nool ahaan intaba waxa halkan jigjigana laga siiyay maxaan ku raadaay awood dheeri ay energy iyo tamar dheeri ah oo aan ku hirgelino maxaa ay hadafkaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu halkaasi ka ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono nabadda ummadda Soomaaliyeed gobolkan geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu ay degto waayahan waxa ugu muhiimsan qof kasta oo shakhsi kasta ah oo maxaa qowmiyadda Soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin ay mar walba u taagan waxay ahayd nabadda madaxweyne Cabdi waa u mahad celinayaa in halkan maanta nabadoonnimadii
nabadoonnimadii Soomaaliya dhexdeeda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku in loo nabadooneeyo nabadna loo raadiyo calaamooyinkii nabadoonka lagu yaqiinana halkan maanta lagu guddoonsiiyay waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka shaqayn doono nabadda iyo dadka Soomaalida muddadii ku guda jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashadii uu ku yimid deegaanka ayaa waxay shacabka odayaal dhaqameedka waxgaradka iyo waliba xukuumadda deegaankuba ay fareen fariimo kala duwan oo isugu jiray hadal iyo ficil markaasi lagu tusayay horumarka deegaanka fariimahaasi oo ay markaasi ugu dirayeen shacabka dawladda federaalka Soomaaliya inay u jeestaan horumarka iyo nabadgelyada waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar labaad ballan qaaday inuu fariimahaasi si buuxda u gaarsiin doono shacabkaasi dadka Soomaaliyeed waxaan u geyn doonaa haddii aan la yiraahdo fariinta aad noo dhiibteen oo ah war annaguna waan noolnahay waana tashanay waana qurxoonnahay horumar wanaagsan iyo dadnimo wanaagsanna waan ku tilaabsanay Soomaaliyana sidaas oo kale aan la jecelnahay iyo fariinta kale aad noo dhiibteen oo ah wax kasta oo Soomaaliya wanaajinayo waan samaynaynaa haddii aan nahay dadka iyo dawladda deegaanka iyo haddii aan nahay dadka iyo dawladda Ethiopia ba fariintaas ah oo aad noo dhiibteen waan gaarsiinaynaa shacabka Soomaaliyeed haddii alla yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa dhinaceena dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maxaan ku raadaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ayaguna meel kasto ay joogaan in ay ku shaqayn doonaan spiritkaas iyo niyadaas wanaagsan ee walaalnimada ah intay socotay munaasabadani lagu sagootinayay waftigana ayaa waxa madaxweynuhu khudbadiisa ku xaqiijiyay inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ayna ku faanayaan horumarkan ballaaran ee deegaanku ku talaabsaday mar kale waxaan idin kugu celinayaa idin xaqiijinayaa horumarka iyo wanaaga aad gaarteen ee dawladda deegaanka iyo shacabkeedu ay halkan ka gaareen iyo doorka muuqda ee aad ku leedihiin guud ahaan waddankan Ethiopia la yiraahdaa in waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in ay tahay arrin aan aad iyo aad ugu faraxsanahay na dhiiri gelinaysa annan Soomaali ahaanna aan ku faanayno oo aan leenahay dadka Soomaalida markii fursad loo abuuro oo fursad la siiyo oo madaxdooda iyo mas'uuliyiinta ayagu ay doorteen ay ka soo baxaan kaalintii loo doortay ee fursadda ay bixiyaan in dadka Soomaalidu dad wax qabsan kara meelo umada badan ay muddo dheer ku qaadatay iyo waxyaabo guulo ah oo muddo dheer ku qaadatay dad yow kalena in ay muddo kooban oo gaaban Soomaalidu ay uga gudbi karaan daliil cad inaad u tihiin dadka Soomaaliyeed waan gaarsiin doonaa haddii aan la yiraahdo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale cadeeyay inay hawl ku deesho mudan ay tahay oo wax loo dhigaa aanay jirin talaabada iyo waliba dadaalada ay xukuumadda deegaanku dib ugu saxayso maskaxda iyo aragtida dhalinyarada hadda ka hor ururada nabadiidku ay maskaxda ka khaldeen waqti xaadirkana dadkooga dhinaca ka raacay wiilasha shalay nala soo tusay ee dhowrka sano duurka ku jiray ee ayagoo raameystay oo maxaankooda injirtu ku baxday ee intaasoo nolol xumaa ay u sii dheertahay dambiga ay galayaan iyo walaalkooda ay dilayaan iyo maanta siday u nool yihiin nolol qurxoon nadiif ah cibaadadeeda wadata mustaqbal leh hantiilayaal yay noqdeenba maanta oo waxaba sanadka aakhirkiisa waa xisaabtamayaan maxaa faa'iido soo gaarooba ka hadlayaan waa hadda ninkii shalay muxuu ahay duurka muxuu ahay nolosha adag ee qaabka daran ee muxuu ahay saas ku jiray maanta ninka ku xisaabtamayo sanadka aakhirkiisa maxaa ii soo haray markii qarashkii la iga jaray shaqadii aan qabtay ee intaana mishaar qaadanaya ee qoyskiisa iyo reerkiisa biil siisanaya asoo mishaar qaadanaya haddana sanadka aakhirkiisa dhahayo maxaa ii soo harayo muxuu looga shaqeey inta hanti lama u imaan hanti kale ma ay soo noqon muxuu ahay markii ay ka imaanayeen oo markii ka imaanayeen hanti lama ay imaan ya xirfadii iyo suuqii iyo hantidii iyo wixii dhammaan la isugu daray xirfadaa la baray shaqadan qabaa la yiri shaqadii markii uu qabtana hawsha uu qabtay ayaa la yiri iskuulaadka kuraas u samee dawladda ka iibsanayso xafiisyada dawladda maxaan ku raay miisas u samee iyo xafiisyo dawladda ka iibsanayso isbitaalka maxaan ku yiraahdaa sariiro u samee dawladda ka iibsanayso shacabka muxuu ahay furniture-ka qofkii rabo waa ka ha ka iibsado kadibna muxuu ahay intaas uu shaqada hayana mishaar qaado oo ka qaado hawshaada
kadibna wixii faa'iidaa kuu soo hara sanadka aakhirkiisa ma wax lagu doorsadaa jira waxaasi se ma ka suurto geli karaan reer hebel ma suurto geli karaan waxaasi waa maya reer hebel ma suurto geli karaan waxa suurto geli kara waa nidaamka dawladnimada bas oo lagu gaaray marka anigoo og in dadkaani wacyigooda uu biseylkaas gaarsiisan yahay haddana waa waxa maanta Soomaali haddaan nahay meel kastoo aan ku noolnahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyo afayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa gudoonsiyay hadiyadii kala duwan ee markaasi loogu talagalay wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale hadiyadaha ayaa iyaguna dhankooga waxa gudoonsiyay qaar ka mid ah wafdigii wehelinayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska horumarinta beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwo Sucaad Axmed Faarax iyo afayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwo Fardowsa Maxamed hadiyadahaasi oo markaasi ka turjumayay dhaqankeena suuban kadib markii ay dhameysteen booqashadii ay ku joogeen dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka duleen garoonka diyaaradaha Garaadulaal ee magaalada Jigjiga waxaana sagutay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo horkacay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar faafahinta warkan iyo wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata wafdigii ka socday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee booqashada ku joogay maalmihii la soo dhaafay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana u yimid deegaanka sidii ay khibrad wadaag uga qaadan lahaayeen deegaanka maadaama dalkeena Itoobiya uu yahay dal ku dhaqma hanaanka federalismka kaasina uu yahay mid ka faa'iidada ballaaran u horseeday dhammaan qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena Itoobiya sidoo kalena uu xaqiijiyay horumarka xawliga ee ka socda dalka iyo deegaankaba haddaba wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxa ay booqasho ku geeyeen mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo uu ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar goobaha horumarka ee magaalada Jigjiga ee sida isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga ee Malazanawi Memorial Referral Hospital kulliyadda Jigjiga Polytechnic kulliyadda maareynta adeegga shacabka dowladda deegaanka Soomaalida jaamacadda Jigjiga goobta ay ka socdaan dhismaha guryaha ee real estate-ka xarunta madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida iyo goobo kale oo kamid ah magaalada Jigjiga waxa uu sidoo kale wafdigani ka socday dowladda federaalka Soomaaliya kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka golaha kaabineyga xukuumadda deegaanka iyo sidoo kale odayaal dhaqameedka deegaanka iyadoo wafdigani uu qayb ka noqday intii uu ku sugnaa magaalada Jigjiga xaflad casho sharaf ah taasoo micno weyn u lahayd wafdigani uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana xafladani micnaha weyn u yeelay socdaalkii taariikhiga ay ku yimaadeen wafdigani uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ciyaar dhaqameedka deegaanka oo si gaar ah uga dhex muuqday munaasabadan micno weyn u yeelay maadaama ay ka raageen ciyaar dhaqameedka dhaantada isla markaana ay u riyaaqeen mas'uuliyiinta ka socday dowladda Soomaaliya ciyaar dhaqameedka deegaanka ayaa haddaba wafdigan markii uu dhameystay booqashadii ay ku joogeen magaalada Jigjiga ayaa waxa u suurta gashay inuu wareysi la yeesho telefishinka caalamiga ee ESTV qaar ka mid ah xubnihii ku wehelinayay booqashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo xubnahan ay ugu horreyntii uga mahadceliyeen xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo bulshada deegaanka sida qiimaha lahayd ay u soo dhaweeyeen wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay bogaadiyeen kana marakaceen in ay soo arkeen horumar itus oo taabsi ah intii ay ku sugnaayeen magaalada Jigjiga sidoo kalena ay xuseen in ay khibrad badan ka qaateen deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba wafdigan uu horkacay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ka ambabaxeen xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii ay dhameysteen booqashadii ay ku joogeen magaalada Jigjiga waxaana wafdigan si wadajir ah u sagootiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar afayeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada iyo sidoo kale golaha kaabineyga dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo kadibna wafdigan uu ka duulay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Jigjiga ee Garaadulaal bulshada danyarta ee ku dhaqan degmada Mustaxiil ayaa la gudoonsiyay lacag kor loogu qaaday nolosha bulshada oo qayb ka ah barnaamijyada xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku horumarinayso bulshada deegaanka warbixin arrintan ku saabsan faafahinteeda waxay noo eegay wariye Maxamed Cabdiwahaab
mashruuca shabakada badbaadada wax soo saarka cunnada ee loo yaqaano BSMB ayaa wuxuu qayb ka yahay qorshayaasha lagu dhimayo saboolnimada waxaana mashruucan xoogga lagu saaraa ilaalinta iyo daryeelka kheyraadka dabiiciga xidhxidhka laagaha iyo jexjexyada iyo horumarinta dhuldaaqsimeedka sidoo kalena wuxuu mashruucan qayb lixaad leh ka qaataa kor u qaadida nolosha bulshada danyarta ah haddaba waxaa la guddoonsiiyey bulshada tabaalaysan ee ku dhaqan degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle lacag lagu kabayay bulshada danyarta ah ee ku dhaqan degmadaasi Mustaxiil oo qayb ka ah barnaamijka BSMB-ga waxaana ka warbixiyay ahmiyadda iyo ujeedada loo aasaasay barnaamijkan BSMB mas'uuliyiinta maamulka degmada Mustaxiil oo uu ugu horeeyo kusimaha gudoomiyaha degmadaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir iyo shaqaalaha ka howlgala mashruucan BSMB hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan maanta barnaamijkan ku jirno waxa weeyaan barnaamijka mataqaanay shabakada badbaadada mataqaanay ama damaanada cuntada loo yaqaano taasoo mataqaanay lagu dhimayo saboolnimada oo mashruuc uu kala baxay mataqaanay ama BSMB loo yaqaano taasoo kala baxay laba nooc public work iyo direct support dadka liitaha mataqaanay iyo dadka xoogsan kara inuu qofku loogu bedelo mataqaanay xooggiisa ama beertiisa oo shaqaysto looguna bedelo mataqaanay ama lacag ama raashin isla markaana mataqaanay waxa loo bedelay hadda lacag ahaanba dadkii loogu bedelay waxaan ku jirnaa maanta aan ka shaqeynaa FDB-gii 8aad ama qabalihii 8aad ayaan maanta dhameynaa mashruucan waxa uu soo socday muddo ilaa iyo 5 sano ah kulay hadda waxa loo bedelay muddadii hore waxa la siin jiray bulshada raashinkii oo la siin jiray ayaa waxa hadda loo bedelay inay qaateen lacagtaasi oo hadda iskugu jirtay 2 bilood oo la soo dhaafay bilihii February iyo March marka bulshadu aad bay uga faa'iideysatay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen waxa kamid ah tusaale ahaan xooggoogii ayaa waxaa la gelinayaa mashruuca ayaa waxay kaga faa'iideysanayaan xooggoogii waxaana ay ku dhisayaan tusaale ahaan haddaynu soo qaadano bakhaarka aynu u jeedno waxaa lagu dhisay xoogga shacabka intaas kadib waxay mas'uuliyiinta gobolka Shabeelle iyo kan degmada Mustaxiil ay booqdeen dhaamka weyn ee laga fuliyay degmadaasi Mustaxiil halkaasi oo uu ka warbixiyay gudoomiyaha Shabeelle mudane Farxaan Cabdi Maajuun faa'iidooyinka ay ka heleen bulshada deegaanku dhaamamkii ay xukuumaddu u fulisay maanta marka kormeer aan ku jirnay oon kormeerinay biyo xireenadii la qoday si biyaha u hayaan iyo si looga faa'iideysanayo inta waan soo aragnay marka aad baan ugu faraxsanahay degmaduna aad bay u mahadsan tahay sida quality gale u dhistay iyo si maxaan ku dhahay bulshadu ay uga faa'iideysanayso haddaba mashruucan shabakada badbaadada wax soo saarka cunnada ee loo yaqaano BSMB ayaa wuxuu ka howlgalaa 30 degmo oo kamid ah degmooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Cabdiwahaab ESTV degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle shirka xoolo dhaqato beeralayda degmada Tuli Guuleed oo looga hadlayay arrimaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa waxa uu ka furmay degmadaasi waxaana ka qayb galay wariye Cali Aadan Cali Ayaanle oo warbixintan faahfaahinteeda inoo eegay shirkan ama fagaarahan weyn ee xoolo dhaqato beeralayda ee degmada Tuli Guuleed loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay dad xoolo dhaqato beeralay ah oo ku nool degmadan kuwaas oo ah kuwa iyagu ku hawlan dhinaca wax soo saarka beeraha ee degmadan Tuli Guuleed waxaana wehelinaya mas'uuliyiin ay kamid yihiin gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed Luula Yuusuf Roble madaxa xafiiska horumarinta xoolaha iyo beeraha isla degmadan Maxamed Ciga Kaamil iyo madaxa xafiiska caafimaadka ee degmadan Tuli Guuleed Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulaahi waxaana shirkan oo ah mid aad u ballaaran hadal furitaan ka soo jeedisay Luula Yuusuf Roble gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed hadaladeedina waxa kamid ahaa shirkan waa fagaarihii xoolo dhaqato beeralayda ee degmada Tuli Guuleed 15 santar xoolo dhaqato beeralayda degmada Tuli Guuleed shirkan waxaan ku falanqeynaynaa in aan sii dardar gelino horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee degmada Tuli Guuleed waqtigii hore dadkeenu waxay ahaayeen xoolo dhaqatana dhibaatooyin badan ayaa soo gaari jirtay waa la wada ogsoon yahay maadaama la wada ogsoonaa in xoolo dhaqato beeralay hadda loo bedelo waxay ka dhigan tahay in nolol sugan ay ku sugan tahay kolley Tuli Guuleedna way ka duwan tahay deegaanada kale oo waa beeralay ahna xoolo dhaqato beeralay shirkan ayaa waxaa lagu lafaguraya arrimaha ay ka midka yihiin horumarka maamulka suuban iyo nabadgelyada waxaana sidoo kale fagaarahan xoolo dhaqato beeralayda waxaa ka hadlay Maxamed Ciga Kaamil madaxa xafiiska horumarinta xoolaha iyo beeraha ee degmadan fagaarahan saakan sugumeena noo bilaabmay waa fagaarihii xoolo dhaqato beeralayda fagaarahan ujeedadiisu waxa weeyaan si xoolo dhaqato beeralayda degmada loola socodsiiyo ama looga wada hadlo ama loo wada gorfeeyo shaqooyinka dhinaca nabadgelyada horumarka maamulka suuban iyo shaqooyinka laga qabtay dhinaca dhaqdhaqaaqa xisbiga ujeedadeedu waa ujeedadaas
taasaanan maanta si cad u wada gorfeynaynaa kulli tabana waxaan soo hordhigaynaa shaqooyinkii laga qabtay waxqabadka aan soo bandhignay sanadadiina soo dhaafay gaarahan oo loo qabtay bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ee degmadan Tuluguleed ayaa waxay ka qaybgalayaashu ballan qaadeen inay sii dardargelinayaan dhinaca wax soo saarka beeraha si loogu guuleysto yoolka uu dalku hiigsanayo inuu ka mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. qaar ka mid ah xoolo dhaqata beeraleyda ayaa shirkan iyaguna ka hadlay. fikradan maamulku soo dhigay waa waxyaalo aan u soo joognay degmadeena Tuluguleed boqolkiiba waxa weeyaan 90 beeraley weeyaan degmadu waxa ay leedahay dhul xoolaha ku habboon waxa ay leedahay dhul masnooyina oo wax soo saarka ka soo go'ay sida basasho kale baradhaha oo kale saytuunka oo kale cinabka oo kale waxyaalo badan oo khayraad oo ku jira degmadeena. haddaba degmadan Tuluguleed ayaa waxay tahay degmo ku fiican dhinaca wax soo saarka beeraha. markana dhinaca dalka baarlamaanada wadamada Afrika iyo Asia ayaa soo gabagabay kulankii ay yeesheen sida warbixintan ku sheegay wariye Axmed Nuur Cabdiwali. kulan ku saabsan geedi socodka dhanka arrimaha bulshada iyo tubti loo mareeyay oo ay wada yeesheen baarlamaanada Afrika iyo kuwa Asia ayaa la soo gabagabeeyay waxaana xubnaha baarlamaanku aad u falanqeeyeen qaab loo adeegsado bahjeedka iyo nidaamka sharci ee loo maro. waxa kale oo intaasi dheerayd oo ay xubnaha baarlamaanku aad uga doodeen doorka uu baarlamaanku ku leeyahay fulinta hawshaasi. intaasi kadib ayaa waxaa goobtii kulanka ka dhacayay lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan waxqabadkii baarlamaanada wadamadaasi waxaana goobtii kulankaasi lagu cadeeyay in uu dalkan Itoobiya guulo wax ku ool ah ka soo hoyiyay howlaha dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo wixii la halmaala. haddaba qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay kulankaasi ayaa bogaadiyay qaabka uu dalkan Itoobiya u hirgeliyay arrimahaasi iyagoo intaasina ku daray in qorshaha mustaqbalka fog laga qaybgelinayo haweenkaasi wadajir loogu fuliyo hawshiisa. waftigii ka socday dalka Djibouti ayaa sheegay inuu faa'iido badan u leeyahay labada wadan jidka tareenka isku xidha Addis Ababa iyo Djibouti. faafahinta warkan iyo wariye Idriis Cabsiye Buux. jidka tareenka ee isku xidha magaalada Addis Ababa iyo magaalada Djibouti ee ay wali samayntiisu socoto ayaa lagu rajo weyn yahay in uu wax weyn ku soo kordhin doono howlaha dhinaca dhaqaalaha ee labada dal iyo waliba dhanka isku socodka bulshada labada dal. haddaba wafdigii ka socday magaalada Djibouti ee buuqashada howleed ku joogay magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin samaynta jidkaasi isku xidhaya labada dal maadaama uu faa'iido weyn ugu fadhiyo labada dal. mar uu haddaba arrintaasi ka hadlay mudane Cumar Aadan oo ka mid ahaa wafdigii buuqashada u yimid magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Itoobiya oo kobca uu faa'iido ugu leeyahay labada dal ee Itoobiya iyo Djibouti maadaama uu isku xidhan yahay dhaqaalaha labada dal. geesta kale waxa ay wafdigii ka yimid magaalada Djibouti sheegeen in ay khibrad aad u fiican ka heleen goobihii kala duwanaa ee ay buuqashada ku soo mareen maadaama ay wadaan tallaabooyin lagu mataanaynayo labada magaalo ee Addis Ababa iyo Djibouti. magaalada Brayo ee dowlad deegaanka Oromia ayaa waxa ka socda maalgashi kala duwan. faafahinta warkan iyo wariye Aadan Axmed Cali. dowlad deegaanka Oromia oo ka mid ah deegaanada ka qayb qaadanaya horumarka qaybihiisa kala duwan ee uu dalku ku tiigsanayo ka mid noqoshada wadamada dhaqaalahoodu uu dhexdhexaad ka yahay ayaa waqti xaadirkan ku hawlan hirgelinta mashaariicaha kala duwan ee deegaanka. haddaba maalqabeennada deegaankaasi u dhashay ayaa wada tallaabooyin ay ku maalgashanayaan dhulkooda hooyo waxaana ka mid ah magaalooyinka ay maalqabeennadu sida xawliga ah u maalgashanayaan magaalada lagu magacaabo Brayo waxaana ka howlgala maalqabeenna ay tiradoodu ka badan tahay 600 oo qof waxaana ka socda magaaladaasi mashaariic kala duwan oo wax weyn ku soo kordhinaya horumarka qaybihiisa kala duwan. waxaana xusid mudan in ay maalqabeennadaasi soo gabagabeeyeen mashaariicihii ay ka wadeen magaaladaas waxaana shaqo abuur ka helay mashaariicahaasi muwaadiniin aad u tiro badan oo u dhashay deegaankaas iyo dalka intiisa kalaba.
qodobka ugu dambeeya wararka dalka dibadiisa Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa waxay ku kala duwan yihiin sida wararka ay sheegayaan qaabka ay u hogaamin doonaan dhaqaalaha dalkaasi Mareykanka warbixin arrintan ku saabsan faahfaahinteeda waxay noo soo koobay wariye Daahir Cabdinuur madaxweynimada wadankaasi Mareykanka ay ku lalabayaan labada musharax ee kala ah Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa waxa ay jeedinayaan khudbado ku kala duwan oo ay bulshada ku kasbanayaan waxaana soo baxay kala duwanaansho dhanka dhaqaalaha ah maxaa yeelay waxa ay aad u kala duwan yihiin qaabka ay wadanka dhaqaalihiisa u kabcinayaan xogtana waxay ka soo baxday markii ay labadoodu soo bandhigeen qorshahoodii ku wajahna qaabka ay maareynayaan dhaqaalaha dalka Mareykanka marka ay madaxweynaha noqdaan haddaba Donald Trump oo ka soo jeeda ururka Republicanka ayaa waxa uu khudbadiisa ku saabsaneyd qaabka uu maareynayo dhaqaalaha dalka Mareykanka uu ku sheegay inuu hoos u dhigayo dhammaanba canshuurta dadka Mareykanka ah wuxuuna sheegay inuu canshuurta ka dhaafayo dadka lacagtooda tahay ilaa $29,000 waxaana laga walacsan yahay inuu dalka Mareykanku 10 sano ee soo socota waayi doono lacag dhan $9.5 trilyan haddii ay dhawowdo arrintaasi halka ay gabadha la tartamaysa Hillary Clinton ay sheegtay inay soo saarayso in ka badan $1 trilyan waxaana intaasi ku dartay in ay qorshaheeda kaga faa'iideysanayaan dadka uu dhaqaalahoodu dhexdhexaad ka yahay inkastoo qorshaha Hillary uu yahay mid canshuur badan ku soo kordhinaya dadka maalqabeennada ah ee wadankaasi Mareykanka waxa kale oo intaasi ku dartay Hillary Clinton inay jaamacado iyo goobo kale oo waxbarasho ugu dhisi doonto lacagta ka soo baxaysa canshuurta faraha badan dadka uu dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa uu dhaqaalahoodu dhexdhexaad ka yahayba guud ahaan baqyaare war wixii haatan naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen ESTV waa naga inta waa aniga asxaabtiga la qayb qaadatay oo isku duubnay dhammaantiin ba idin leh sidaa iyo nabadgelyo